حسي حاجك قصونيو هالكا دحسونا الحقيقة ويا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هالكني والحقيقة فالذي برنامج كن وحويان دولة عبد الرحمن عرو on horey ku sheegay in nin walba siduu doono u dhaqmayo oo ay wada socon inay shalayeen maanta hal mashruuc oo iyada uu ka soo wada baxay isla dawladda uu ay laba hay'adood dawladii midna uu shalay daafuray midna uu maanta daafuray isla mashruuciina uu tahay isla goobtii ay tahay ilaa isla halkii laga daafuray ay tahay wax isbedelay inaan jirin arrintaas oo ugu binagu ah kaasuu barnaamijkeenu daaran yahay aan bilaabe in badan baan idinku idhi dowladdaasi waxayd waa indha sarcaad iyo been waxay inagu bilowday markay bilba aanay joogin inay tiraa mashaariic hore loo dhagax dhigay iyo qaar socday ayaan dhagax dhigaya ama aan dhammaystiraya bilba may joogin afartii bilood ee ugu horreysay waxayna haystay dhagax dhig iyo mashaariic iyadoo cusub mushaarkii bixin kara laa warbajin baa waanigii lahaa shaydaankaa markuu dhashay baa layidhi markaba inta kaba bura gashaday iyo suud uu bur qaataa uu dilaa tagaa suu seeradaas shirwada iibsadaayo ariga iibiyaayo dhoofiyaa bacbushtariya duulaayo diyaarada kiciyaa baa layidhi wuxuu ku gaangaaraa saacadu tabtii oo kale nolol dhaqantayoo iyadoo nalanba ayay nagu bilowday mashaariic baan furay iyo mashaariic baan dhagax dhigay mushaarkiina bixin kara laa waxay sheegatay dowladihii ka horreeyey waxay qabteen oo dhan oo duuban oo aynu maalin walba soo hordhigayno iyadoo caddaymaheedii wadata oo aanay ka xishoonayn maanta haddaba nin walba wuxuu quustay wixii hore bik dowladihii hore waxooda la sheeganayey waa meel soke ayagii baa isla soo galay soorkii ila waa meeshaa cidina aanay xukumin nin walba halku jooga isaga xukuma nin xukuma ma jiro macnaha waxa weeyaan madaxweynihii ayaan wax badan ogeyn wala ka sokaysa wax maamulaysa oo ayaguna wax boobaya marka kuwii wax boobaya wax maamulayay maamulkaba dee sharci darrada ku haystay ma xukumi karaan kuwa kale nin sharci darro ku jira oo isagii qalad ku jira oo aan isagii madaxweynaha hayni ku kalena ma maamuli karo waa qaatee qaado nin waliba halka yaro uu joogo waa bakhaar iyo meheradu leeyahy siduu doono ugu dhaqmay haddaba waxaa cajiiba magaalada gabiley ama gobolka cagaaran ee gabiley waxaa ka dhacday in bara saabkii gobolka oo guddoomiyihiiya mashruuc uu furay waxaa la socda wasiir ku-xigeenkii xanaanada xoolaha waxaa la socda maayarkii magaalada gabiley mashruucii way la fureen bal waa kuwanay dhegeyso halka lagu furay waa isla goobtiiuna wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga ee somalilan iyo barsaabka gobolka gabiley maxamed cabdilaahi jaamac baqawiir iyo maayarka magaalada gabiley cabdirashiid hayba farax daacad iyo sidoo kale saraakiisha hay-adda faw ayaa maanta si wada jira xadhigga uga jaray 4 mashruuc oo hay-adda faw ay ka hirgelisay deegaanada kamsaha ceel baxay taysa iyo sidoo waa daawatay baan filaya qaar baan dharkiiba iska bedelin maalinta wax ku fureen oo shalay ahayd sida la sheegay maanta ayaa haddana wasiiradiiyo gobolka u dhalatay waa wasiiradii qorshaynta waa intii gobolka u dhalatay waa wasiirkii gobolka ay big soo tiriyo iyana mashruucin bay furtay kaaga darane kuwii markii hore la joogay bara saabku haddii alla kuu roon yahay may odhan war annaga fiidiyoyadii hore lanaga haya sawirradii hore ile waa kuwaa sawirradoodii iyo fiidiyoyadoodiibe inaga daaya meeshan oo inaan ku cibaabelada isku dowlad quraynu nahay may odhane way soo raaceen waa wasiir ku-xigeenkii xanaanada xoolaha iyo maayarkii gabiley may odhan sawirradii hore lanaga hayaa kuwan dambe gelimayna waa ceebay naga daayo tiina way soo raaceen iyana inantiina waa taa dib u furtay bal iyana ila daawada inantiina wasiiradiina ila daawada waxaan runtii u mahadnaqayaa mar labaad hay-adda faw wasaaradda xanaanada xoolaha iyo hay-adda kale Swiss Agency for Development and Cooperation oo iska kaashaday mashruucan fulintiisa waa daawateen labadii caddaymood iyo sawirradiiba waa kuwa
daaqadaa yar ee daaha laga foydayo iyo boorka yar ku yaallo weeyaan waxa laynoo furaya waxa la qabtayna waa makiinad haruudhada reedqada maaragtay wax weyn badda ahayn wax weyn oo wasiirra iyo barasaabiyo iyo isku eriyaan mashruuc weyn maaha waa wax yaroo wax badan baan ku kacayn ayaa sidaa loo gelaya oo la isugu eryanaya bal waa yahay dowladdii kuwa noocani ma waxbay ku soo kordhiyeen mise waxbay yeeleen xaqiiq waxbay yeeleen dowladnimadii baa lagu ciyaaraya nidaamkii iyo structurekii dowladnimo ayaa la burburinaya maalin horaan jiri war saldhiggii bilayska iyo hay-addii maxayday CID wax baadhaysay ayay telefoonkii madaxtooyada toos ula soo hadlaya weligeedna may dhicin structurekii amniga oo khatara ee dowladnimo la baabiinaya wasaaraddii arrimaha gudaha amnigii soo gelaysa waxaa soo gelaya taliyihii guuda bilayska waxaa ku xigaya hogaamadii waxaa ku xigaya taliya qaybeedyadii waxaa ku xigaya taliya saldhigyadii ilaa heerkii nooca ahaa inta laga soo boodaa buu khatar soo qaadaya telefoonka soonaya maxamed jaamicii saldhigga koodburbahaa xidhkaa yara warqad ka qor ha aabbihiina warqad ka saxeex marka waran ma dowlad baa markaa miyaynaa cidlo fadhiyin waxaa arkayseen maanta madaxweynihii dhammaa ee qaranka inuu khatar amnigiisa galay uu dayacan yahay dadka qaar ba u haysteen cirro quri dayacan yahay hadduu madaxweynaha kastaa u dayacan yahay macnaheeduna waxa weeyaan dalkii oo dhammin inuu dayacan yahay inuu dayacayna waxa maalin walba naga qarsiinay weeyaanoo aynu arkayno cadowgii somalilan oo dhammin isu ka soo bahaystay oo weliba iminka galbeedka iyo barigaba dagaala ka filayo hubaal dagaal baan ka filaya isaguna waa kaale waa naga hinaastee ma hinaasaa yaalla xabaddaaba laguu sitaay wax laga hortegaya waxaan itiraafaad ka sheekaysta laga hortegaya waxaa lagugula dagaalamay way caddayd ee laascanood lagu soo weeraray isla wixii lagugula dagaalameed maantana inagu socdo maraykan ka socda marka in bari iyo galbeed dagaal kaaga bilaabmaa nin kastoo caqli lagu garanaya in diyaargarowgeedba laaga baahan yahay iyo inaad farta lusho oo dadkaaga dareensiiso in lasoo weerarayo haddaad tiraa waa laynagu hinaasay macnaheedu de waa sheeko caadiya oo waxba aanay jirin nin baan dhegaysanayay sucaad carmiye waa aad uga xanaaqday hadalka sanadee ka socota dowladdeena wala war waxaan de wax maaha laydinka dhegaysan karo ee farta lula oo dadka dareensiiyin dagaal lagu socdo yacni qof kastoo damiir lihi wuu garanayaa waxaan ka wadaa dowladnimadii waxaa burburinaya quri waa dowladdeena isla ayagaa burburinaya kuwa iminka sidaa u dhaqmaya labada goor mashruuca daahayar meesha ka furaya ma kalsoonidii dowladnimo dadkay baabiinayaan ma dowladnimadii ba burburinayaan mise waxbay soo kordhiyeen khilaaf gudahooda baa jira waayo maanta markan iminka inantu furaysay wasiiraddii muu imanin guddoomiye gobolku taas macnaheedu waxa weeyaan intii shalay la socotin ayinba haddana soo kaxaystay iyadiyo haddana iyadii meesha keentay isagana wuu ka maqan yihin waxa weeyaan xuduud ma kala leh hayadii dowladdu xad ma kala leh way dhex qaadayaan waxaa taa ka daran mashaariicdan la boobayo iyo qandaraasyaddan la boobayo habeen iyo maalin gartooda lagu jira gobollada oo kuwan xisbiga waddana la socday dee qolada boobka u qaabilsay dilaalidda ilaa madaxtooyadii ilaa hay-adihii dowladda madaxdeedii waxaa la isku haysta mashaariic gartaa ka dhacaysa habeen iyo maalin adaan kaan ka rooyey anaa tan lahaa adigu intaasaan ka qaatay oo waxaasaa la isku haysta gebiga waxaan dowladnimada waxaa loo haystaa meel loo soo boob tegay iyo bakhaaro iyo hay-ad wal oo la magacaabay ninkii loo magacaabay iska leeyahayoo dukaan uu leeyahay tayo booshar uu leeyahay bakhaar uu leeyahay waxaan leeyahay waa ceeb waxaa wadaa tooshkana waa landaba sidaya ma adkaysan kartaan waa cabbantiin idinkoo waxaad ogtay samaynaya baa cabbantiin waxaa wadaana waa burburin war wax ka bedela waxan waan ogahay ninka meesha joogay madaxweynihii inaan waxba la gaarsiinay safarkiisa waan ogahay dad baa loo diyaariyey sidii gabadhii maalintii dhaweyto lahayd maxay leerkii bad buu noqday waanu ku dabaalanaa waanu macaashnay waanu qaar noocaasoo kale baa lagu diyaariyay halkan odayaashii waxaan ogahay isa saarkeed doorashada isu ka saaray ee gobolka maxay madaxweynuhu tagay markay togdheer u dhashay ee guddidii isa saarkay habar jeclo kamay ag wareegin waxay uga ag wareegi waayeen waa cillo jirta waxay uga ag wareegi waayeen waa arrintii maxaabiista oo ay in badan lagala hadlo beeshooda kula hadashay
madaxweynahana ay yidhaahdeen waxbaan isku ognahay wixii baa isku qarxi doona madaxweynaha waxaa la diiday xaaladda dhabta ee gobolka taalla iyo dareenka dadka inuu ogaado waa laga ilaalinayaa waxaa loo sii qorsheeyey dad la kulmaya habeen horaa lagu siistay qoladaha bashara ku shirtay meesha la balaasa dad guulwadayaalo oo madaxweynaha uga sheekeynaya inuu roobka isaga la socday roob helay isagoo hadda roob helin in nimcada saa u daadanayso dad uga sheekeynaya loo sii diyaariyey meel walbana waa nooca de waxaasna xaqiiqda way ka fogta yacni markaa ninkan madaxweynaha la galbinayaa isagii baa lagu xereeyo gaar laga hayaa laga ilaalinaya dadkii iyo inuu wax ogaadaba boqolkiiba 70na waxaa dalka ka socda ma oga waxaa loo sheegayaa wax yaroo lasoo qorxiyey waxaa loo sii deynayaa qof la ogiyo wuxuu ka hadlayo qof xaqiiqda ka hadlaya loo sii deyn maayo nin baa allah ka hadlay ciise muuse ah oo la taliyey berbere ka hadlay waa la xiraa laguuri oo ku yidhi waxaan isaga nama dhaqaysa madaxweyne kelmadda hadalkiisa ku soo dhacaysa laftiisa loo diiday yani markaa waxeenoo dhan ba fayga beenta iyo artificialku iyo fayguna dee meel ma gaadhay way duntaa uun waarooy waxaan wax ka bedela waxaa doontaan cunoo warka xiisihiisiyo xaaja ka qarsooniyo halkaa dahsoona alxaqiiqa weeye